ثم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لك الحمد بالإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرستي جنها كورابيه waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. Suldaan Ibraahim Jaamac Samad aaska suldaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley. Mas'uuliyiintani ayaa dhammaantoodba tacsi u diray ehelkii, qaraabadii iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay Suldaan Ibraahim Jaamac Samad. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. كل نفس ضائقة الموت. إنت كستوى الدون كن جوكتا وادي منسا وحين ما انتهى كنو جوكنا آسكا مرحون إبراهيم جامع سمتر وآسر الدين تيغو قران كسوى مالا سلام تيغو وين كملها وإن رب حي هذا هراء تلك التركه جيريودي وحنا كان كتعسي ومرنا يا لمان ومدرسة مالان iyo dhammaan qoyskiisii iyo inta eheladiisii in Ilaahay dhammaan samir iimaan naga siiyo isagana Ilaahay waxaan u barinaynaa in naxariis janna ka waraabiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. waxaan maanta u joognaa halkan isugu soo nimid waxa weeye aaska marxuum Ibraahim Jaamac Samatar oo ka mid ahaa salaadiintii qiimaha iyo milgaha ku lahaa Soomaaliland oo run ahaantii wax badan ka qabtay dalka. waxaan markaa Ilaahay uga baraynaa inuu maaragtay naxariisto. waxa weeyaan hore alla inoo sheego kullu nafsin daa'iqatul mawt. cid waliba jidkaas ay maraysaa. suldaanka Ilaahay ha u naxariisto, jidkiis muxuu ahaa siraad Ilaahay ha mariyo. ifkiisii hore uu wanaagsanaa ummadan uu soo adeegay annaga ka markhaati ah. geedi socodkii qarankanu door weyn ku lahaa. waa nin bulshaawiya suldaana waxa weeyaan geeri wada taabatay weeyaan reer Soomaaliland oo dhan. waxaan Ilaahay uga baryaynaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan reer Soomaaliland oo dhan inuu samiriyo iimaan ka siiyo, isagana Ilaahay u naxariisto oo qabrigiisa uu ka dhigo rawdatan min rawdaati janna. oo wali muhiim naxdin bay leedahay. waa nin hoggaanowha marka naxdinteeday leedahay, laakiinse hal la yaqiinsado kullu qof kasta uu tagayaa halkii la wada marayay uu maray. Ilaahay uu naxariisto, jannadii firdawsi Allah ka waraabiyo. Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo. eheladii iyo qaraabadii iyo qarankii Soomaaliland uu ka baxayna samir iimaan Ilaahay ka siiyo. Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo runtii aan maanta ku aasayno gobolka Gabiley lagana soo qaaday wadanka Turkiga magaalada Istanbul xalay laga soo qaaday meydkiisa. waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto barabadane. waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto qaraabada iyo ehelka iyo qarankabana samir iimaan ka siiyo. wuxuu ahaa suldaan weyn oo qaran oo ummadan dhaqan ahaan ugu soo shaqeeyay muddo dheer. waxaan leenahay waqti wanaagsan buu dhintay oo bil Ramadaana maanta oo ay tahay Ramadaan labana wala guddigaya. waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto, Ilaahay jannada ha geeyo. in Ilaahay u fududeeyo su'aasha intii hore way dhaaftay. ummadda Soomaaliland hadday dhaqan tahay, hadday dawlad tahay, hadday shacab tahayna Ilaahay waxaan ka baryanaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo reerihiisiiba in Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Ilaahay ha u naxariisto. nin fiican buu ahaa. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qabriga u nuuro. qof waliba geerida waa dhadhaminayaa, qof walibana maalintiisuu dhimanayaa. waxaanu leenahay samir iyo iimaan haynaga siiyo dhammaan shacbiga reer Soomaaliland, ehelkiisii, qaraabadiisii iyo qoyskii iyo carruurtiisii iyo ooryihii ka tegay. waxaan leenahay samir iyo iimaan Ilaahay ha idinka siiyo. kullu nafsin daa'iqatul mawt. waxaan joognaa aaskii marxuum Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistii jannaha ka waraabiyo. wuxuu ahaa suldaan weyn oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaranka Soomaaliland nabadiisa, dib u dhiskiisa iyo horumarkiisaba runtii door weyn ku lahaa.
ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu tacabkii uu qaranka iyo dadkiisaba gashaday u xasiliyo. xamse cabdirashiid sheekh diris MMTV Gabiley.